السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة قيمة يقدر انت مضان أدبان دين سلامية ملك استضافة عالم كاد كجوكتان سلوى صاحبيال ناكتان هالكا إذا موقته الصوماليات وناك توقع ولبه ilmaha xada waxa lagu qabtay ayada oo xadaysa wiil yar oo Soomaaliyeed kaaga darane marka muuqaalkan laga diyaarinayo waliba laga duubayay waxay leedahay indha adeeg ayada leeba dhameysayba muuqaalka waa diga duubteene bis iga kala daaya wax badan halkan waalidiinta Soomaaliyeed waan uga digay caruurta la xado ee waliba laga beec mushtaro la iibsado caruurtu way kala qaalisan yihiin sidaan hore idinkula wadaagay cunugba cunugu ka qurux badan yahay oo ka nafaqa iyo nolol qurxan yahay waa uu ka qaalisan yahay cunuga reerkooda ee aad u dhaqaaleeyeen amba familkooda ee aad kaga taxadareen inta badanna aad loo koolkooliyo waa uu ka qaalisan yahay cunuga reerkoodu dan yar tahay baahidu ka muuqato daruuftu ka muuqato xanuunku uu ka muuqdo cunugu qaalisan waxa la gadaa $2,000 kuwa kale tana waa un ka qiimo yar yihiin hadaba in badan ayaan halkan idinkula wadaagi jiray waliba idinkaga digi jiray maanta waxaan idin hayaa qaar kamida dadkii ilmaha xadaye ee naagtan Soomaaliyeed ee idin muuqato la qabtay maanta waliba reerkan halkan ku xoonsan ayaa qabtay markali ayaa waxa lagu baraarugay naagtan oo cunugeysata hadaba xagee baa laga xaday xagee naagtan lagu qabtay xog ku saabsan muuqaalkaana waan idila wadaagi doonaa hadaba muuqaalka xiga ee aan idin hay ayaa wuxuu yahay bartii TikTok waa isi halaabaysa waxaad arkaysaa gabar iyo hooyadeed oo halkaan lagu kala qarqaadayo gabadhu waxay ku leedahay hooyaday way tuurtay waxayna ugu leedahay waxa tahay eray aan afka ka sheegi karin kaaga darana hooyadu waxay leedahay sida aan aabaha ku baloogareeyay ayaan adigana ku baloogareyn doonaa xog ku saabsan muuqaalkaasna waan idila wadaagi doonaa guud ahaan intaas muuqaalada soo guda galin haday tahay booqashadaadii ugu horeysay waxaan si xushmad ku dhaantay kaga codsanaya walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe inoo saartaan sidoo kale waxaan si xushmad ku dhaantay kaga codsanayaa inaad muuqaalka inoo qurxisaan qof walba oo muuqaalka daawanaya waa codsiga iyo dhaxalka kaliya ee aan idin weydiistay ee ah muuqaalka inaad noo la gareysaan oo aad sharta nagu dartaan si muuqaalkeena uu gaaro saaxiibo adiga kala qalbi wanaagsan muuqaalka yaabkii ama kaagi urida ayaa wuxuu yahay hooyo iyo gabadheedii oo ugu dambeyn barta TikTok meek ku kala qaatay gabadhu waxay leedahay anigu hadduu aabbay soo korsan lahaa sidaan hooyaday ilama dhaqanteen hooyadan waxay ku leedahay waa ku baloogareynayaa sida aabbaha aan u baloogareeyo kale hooyaday waxay ugu tilmaamtay tiri waxyaabo aan aniga ila qurux badneen inaan halkan la soo istaago bal waa kan muuqaalkooda iyo qaabkii isaga fal celinayaanba aan isla daawano codkeeda isasigu caynayso war markasta go'da lafafka dhaxda xaqlada ablaaga dhibcay ku jiraan deerana way ka dhigtay oo way durta ablaaga dhaxda ablaaga dhibcay ku jiraan way fiican وكاسا وادنقليسا أنا مر والبو أيقول شيء يسردلو نادان دلاعي مر ورا تكلم يلا كلو أنا نسكتي لا وركيدا والله أنا ما تدلى لا من تدلى ستة الحق تلمنها ودي لعق قادنتay والله meelaha barbarta dhilada aniga maadiga wanaagsan waataas dhilada dhashayotay gule asaasi xayrayso Allah way baay duyadan maxay keenay
كاس عود كذا وكاس habarha ooyin lagu dharto wallahi sida aabbaha ku baloogin wallahi sida aabbaha ku baloogin iyo magacayno كاس dhageyso ala ku dhageysiinaysug billahi wallahi lagu dharto wallahi sida aabbaha ku baloogin wallahi sida aabbaha ku baloogin iyo magacayno wallahi sida aabbaha ku baloogin iyo magacayno aabbaha soo kuma dirno kuma tuurin wallahi sida aabbaha ku tuurin iyo magacayno wallahi hadda waa kaas mar walba waxay ku xaynaysaa xayawaatinteedu inuu tagalaabadu jooganiga bay mu korsanin war maanta way haysan laabay inantiis xurad banaa inantiis maasan u silxalaansan u oginay abay marwoy baba ku dhacay baba ku tuuray oo ilmeeda waxaas kule taa lagu arkay يا وكاسا والله يبود القاذ كري إبدا بس براي إبدا بس كيسنا إبدا بس نا مرمود ما تقدر تبريا كبها سنة كولي marway biliis habarha ooyin anagana naga oysin habar macaaney ilaahay horta culayska ku saaray ilaahay ka qabto aan wax kale oo niraahdo ma jirto Soomaaliyeey gabadhaasi aanu halka iska fadhiy ay leefka igu timid leefkeega xumay caatada baa iska soo furtay ilaahay inuu inantaay hooyadeeda Faatixada Soomaaliyeey u mara ilaahay badkooga burcada iskugu mariyo inaadeer macaaney ilaahay ha ku xaafiyo wallahi billaahi تشاشدayda markaas ka soo buuxisaan ni soo qaban maayo maqasaba ni soo qaban maayo inta iska nafisto wallahi billahi daasi Nairobi inta isku dilayd inaad arhay nafisto dadkii jiibiyada igu daawan jiray way isku soo qaadayaan daaqada dadkii jiibiyada igu daawan jiray lama soo qabtaa bal waxay dhahdaan dhageysanay badadkii jiibiyada igu daawan jiray baan soo qabanay dhageysta Soomaaliyeed ilaahay baan igu dhaarshay marwoy habar please ilaahay baan ku dhaarshay habar iga maqlas habar taabaanay waalid baa ku toosan inay war maanta taafacayga la tartamila aan la shaqo dhaca qof walba oo inta leega magaalada dhex fadhiya habar dhulka eegal ilaahay baan kugu dhaarshay marwoy heesayn iska dhageysanana halkaas aan iska fadhiyana habar bilis ilaahay baan kugu dhaarshay oo intaas way idhibasa habar macaan habar iska aamus dadkan la dajiyo hadaan dajiyo wax ka xuniye sameysay istishaynanta yar maxay naga qaldanaa bi whatsapp-ka u galay inta yar sasabo oo ballaha la biskixdeeda dajiyo oo waxay cabanayso ka tirtira Soomaali hada tiidin naclaa bi nagu yaalay habar macaan bilis waxa dhajba bila ku sheega wallahi waxaan ma qabto ana hooyadayda war qof balmiisa ku dhaadhilaantay dhaya bilwada leedahay habar macaan bilis waa ku baryayaa habar bilis marwa saaliga ay gashay dhalay tustay wallahi malaay maqofka xaasid bada dhaafta reerka islaamada la joogay ku diraaya والله يا دوليو لنا اسكن دتال خاطر دلوش ما تقول والله اللي خاطي يا دولي والله وحده ويقدر والله daawadayaal ugu dambeyn waan filayaa muuqaalka inaad si wacan u daawateen haddaba muuqaalka xiga ee aan idin hayo waliba muuqaalkan uu aad u anfacayo waalid walba oo Soomaaliyeed inay kuwaana qaataan cunuga la xaday ee naagtan idin muuqata lagu qabtay inay dhici karto birrito leh in cunuga sida cunugaaga sidaan oo kale loo xado naagtan wiil yar oo Soomaaliyeed ayadoo xadaysa ayaa la qabtay qaar kamid ah dhalinyaradii ayaana muuqaalka duubeen si birrito leh ee dadka kaga duunaato qof walba arkana u ogaad inay tahay naagtii tuugada ahayd ee ilmaha lagu qabtay kaaga darane marka muuqaalka laga duubayo ayaa waxay leedahayba waa iga duubtay muuqaalkii dee iga kala daaye
wax ka indha adag weligii ma arkin. dadka halkaan isugu soo xoomeynay waa qaar ka mid dadkii gacanta ku dhigay naagta markii cunuga xadeysay iyo qaar kala wadada marayay qaarka halkaasi deganaa dhammaantooda marka li ay wax ku baraarugeen naagtan oo gacanta lagu haayo iyo cunugii xadeysay halka waxa soo gaaray reerkii cunuga laga xaday. bal waa kan muuqaalada oo dhameystiran marka hore aan isla daawano. تبيه قاعد كويس تبعي دوفتي بس كذا كذا العلم إذا قلت أنا ولا عملت تبعه كان كذا معك أنا كذا دوت عيود من مش عيود لما وصل واحد daawadayaal ugu dambeyn waan filayaa labadii muuqaalba inaad si wacan u daawateen. haddaba waalid ma tahay adiga ayaa ka mas'uul ah ilaalinta carruurtaada. haddii kale inta cimrigaaga ka hartay waxaad ku noolaan kartaa shalay waayo ilmahaagiyo caafimaad qaba ayagoo faraxsan banaanku baxay jaani cirif halkii u dhigaa dad garan weydo meel walbo tagtana aad ka weydo ilmahaaga nolol noocee ah aad ugu noolaan kartaa. dadkan naagtan hadda la qabto waa ay ka badan yihiin dadka ka ganacsada carruurta. rag iyo dumarba waa ay leeyihiin wado walbo ay kaaga soo bixi karaan laga yaabee in agagaarkaaga ay degan yihiin. fadlan haddii aad waalid tahay waxaad ka mas'uul tahay ilaalinta carruurtaada. muuqaalkan qof walba oo daawada waxaan ka rajeynayaa in ehelkiisa qaraabadiisa iyo asxaabtiisa uu la wadaagi doono si ilmaha adeerka abtiga habaryarta eedada aad ugu tahay ay halkaasi ugu badbaadaan. hooyada iyo aabaha dhala ilmahana waxaan rajeynayaa inay taxadar dheeraad ah muujin doonaan. fadlan ilmahaga iskuulka adiga geey dugsiga geey ka warqab adeega aad u dirayso aad kaga ilaali gaar ahaan habeenkii ka taxadar in ilmahaaga aad u dirto howlaha yaryarka ah waayo waxaad halis gelin kartaa guud ahaan naftoodaba inaad halkaasi ku weydo. hadda cunugan naagtan lagu qabtay maalin caday ayay ahayd qoraxda sidaad arkaysaan waa abaarihii 6 saac 7 saac. dhacdadan waxay ka dhacday Soomaaliya laakiin meel kasta ayay kugu qabsan kartaa waayo dadka ilmaha ka ganacsada meel kasta ayay joogaan. ilaahay ha nooga badbaadiyay ilmaha dadkan usoo tafaxiitay ka ganacsiga ilmaha waliba way kala qaalisan yihiin. qofka iimaankiisu liita oo liidada maanta $1,000 ayaa lagu siinayaa haddii aad ilmahaas noo keento hore ayuu ka galayaa waliba asagoon ka fikirin. adiga mas'uul waxaad ka tahay ilaalinta ilmahaaga. waxaa lagaga baahan yahay inaad taxadar dheeraad ah muujisaan. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. haddii sataa booqashadaada ugu horeysay mar kale iyo mar xiga waxaan si xushmad ku dhahanteed kaga codsanayaa walaal inaad ugu soo biirtaan oo aad channelka subscribe inoo saartaan. sidoo kale waxaan si xushmad ku dhahanteed kaga codsanayaa inaad muuqaalka inoo qurxisaan oo aad noo laagareysaan oo aad share noogu dartaan si muuqaalkeena uu gaaro saaxiibo adiga oo kale qalbi wanaagsan. muuqaalkan mid la mid ah inta kulmi doonana waxaan idinkaga tagay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.